afternoon, Leader Sheikh Mandove and all members of the Jubaland interim administration, Deputy Speaker of the Federal Parliament and his distinguished delegation, the newly elected Vice President of Puntland, very active representative from civil society, business community, and a number of Somali friends which I have not seen actually for quite a long time. Last but not least, I would like also to express our gratitude to AMISOM and to the interim administration security forces for taking very good care of us. Let me just summarize. سفيرك وحير وسفيرك أما إرجيغا ميدوغا يوروب حكاية جبار. سفيرك وإرجيغا ميدوغا يوروب مكيلا جبونة. مركا لكل واحد درب وكعد لي هاي شيء واسوكولي. سراني بوغادن وجنبيها maamulka gobolka Juba iyo ku bilaabay salaan ugu bilaayay iyo guud ahaan waftiga jooga kala duwan ku bilaabay gudoomiyaha koowaad ee baarlamaanka federaalka jeediyay Nurikar iyo waftiga ka socda Puntland hogaaminaya walaalkan isna magaciisa tilmaamay ama sheegay iyo guud ahaan safiiradii la socday iyo bulshaweynta iyo shacabka Jubaland ama Juba guud ahaan. Distinguished colleagues of the international community, the special representative of the Secretary General Nicholas K. IGAD has both guarantor and facilitator of the Juba Agreement, envoys and ambassadors. It is very much a true honor the European Union has witnessed of the historical agreement of the 21st of August in Addis to be here today. ولو وقت ما من ملايين هذا سقاس بقولناضي وقت ما مي إرجيغا غربة ميدوغا نيكولاس كي سنا إرجيغا ميدوغا أفريقيا أم AMISOM النظيف يجودهان سفيرة كله سو سقاس هذا وقت ما مي شيء كرداعي التصوّر وأي مساعدين maamulka Juba iyo dawladda federaalka Soomaaliyeed heshiiskii taariikhiga ah oo isla markaas tagarwadeynta ay ka ahayd dawladda Itoobiya iyadoo markaas isla markaana ah gudoomiyaha ama gudoonka IGAD ama ururgoboleedka IGAD. What we're launching today is something very special. It's the first model of consensus building between the center and periphery in Somalia. maanta waxaan joognaa ama aan unimid waxa weeye model ama wax astaan wanaagsan oo hor socod leh oo saldhigna u noqonaya macna geedi socodka guud ahaan ee Soomaaliyeed ee federaaleed. I would like to thank the Juba interim administration and the people of the Jubas for this very warm welcome and for making us feel all at home today here in Isimayo. waxaan rabaa inaan mahad ballaaran u soo gudbiyo maamulka Juba iyo madaxdeeda iyo shacabweynaha guud ahaan mahad ballaaran inaan u gudbiyo aan doonayo iyo bogaadin maanta. I can assure you we will not only be here for these events, we hope to have our presence felt permanently. waxaan rabaa inaan idin caddeeyo imaashaheenu ama imaashaheenu halkan ma noqonayo macnaha mid ku kooban maantadan معناها waxay noqonaysaa inaan halkan ka sameeyno ama aan muujino presence ama joogitaan aanan noqono dad macnaha idin gacasiyo howlihiin halkan la tafsiirsan. All of you present today at this wonderful gathering, I think, are the best demonstration on how the Executive Council will be guided and respond to the needs of the people of the Jubas. waxaynu muuqdo waxa weeye wanaag iyo ka doonasho fulinta howlaha u yaalla iyo howlaha ay doonayaan inay fuliyaan macnaha hor yaalla.
I would like to echo the words of the Ethiopian ambassador, guarantor of the agreement, and congratulate both the Juba interim administration and the federal government for taking forward the second and very important step of the Juba agreement and convening in Mogadishu the reconciliation conference there and following it up with comprehensive consultations here in Kismayo. سفيرك إثيوبيا كونديمو غريدي هالكن وكشجع واحد بقادينتا ونكو بقادي دولة فدرالك يماملك جوبا كنا بقادي جدي صعدكي يدلالي أي سمين ويكون تشكي مقدشة لغو قطعي يهشيسكي أتصابك الرعاية. This has paved the way for the formation of the Executive Council, which we are inaugurating today, and once again on behalf of the European Union and the EU member states, represented actually today by my colleague, the Swedish ambassador, Mikael. Once again, our warm congratulations. Council has huge responsibilities and we very much wish you every success. Let me highlight some of the few challenges. First of all, first of all, as mentioned in the agreement, we hope that a process will be launched for there to be a broad agreement between the administration and the federal government to establish the modalities for a roadmap for federal member states in Somalia. ay tilaabooyin dheeraad kala qaadaan tilaabooyinkaas ay ka mid tahay in road map ama qariirad dii lagu gaari lahaa federaaleynta ama lagu gudbi lahaa tilaabooyinkii labada oo loo macnaha tan tii xigta ahayd lagu gudbi lahaa iyadana inay hortaado. Secondly, we look very much forward for a broad consultation process for the formation of the regional assembly, including all clans, elders, all segments of society in the Jubas. And last but not least, if you allow me, following the intervention of the lady speaker earlier from civil society, it is very much an opportunity for 50% of the population of the Jubas, the women, to seek representation. برلمانكي يقولهم معناها ويلا لها ماملكا عن رواهنا نسي خاص ينا وشيء أما وعديه هو شيء كذا واجسي مرودي هذا كان ليسي تلمان أي كبح سيد أول كأفتين كالي يشان أول كنا وابعط وقلت نبان في يا بويدي ترى جود أما هذا كبر نمر Let's let the Jubaland Assembly be a model for the rest of Somalia. وعن رواهنا خصوصي ماملكا إن هبونتها هي إن جوبلاند أما ماملكا معنا جبوينكا هو نقطة رول موديل أما ماملكا ده شمودان. Thirdly, your reconciliation and outreach efforts can very much spearhead the expansion of the administration in all districts in regions of Jubaland. يلو حتى دوشيسنتا يدلك لوجاريو ملاح كلا بشويك لكن جولادني سي أي هذا أمر الرشوة أما لو تابعليو جودان هولا عاد معنا إكسايسان. This has to go hand in hand with reorganizing and orientating the local communities towards liberating areas from Al-Shabaab. حقيقة مهم وصلك ديتا كميركو أورينتا لوكا أحسن وعدو هيستو شباب
هي أيضا قضاء كلام مهمة والله بحي أيضا إن سي لو قبل لها ذكرنا معنا لو قبل لها لونا قبل لها جارد جدويك. Fifthly, the agreement mentions clear dispositions regarding the security aspects, particularly the integration of the security forces. We have been impressed in the security arrangements that have been put in place here in Kismayo, and we very much look forward that they are expanded to the rest of the regions and areas. heshiiska waxaa kaloo waana tilmaamaya uu yiri ammaanka arrimaha ku saabsan iyo ciidamada marayntooda habeentooda iyo dib u habeentooda intaba waxaa kaloo yiri waxaa kaloo aan ina soo gaadhay in aad guli ka gaadeen nabadaynta magaalada Kismaayo iyo ammaankeeda macnaheedu inaad xajisaan waxaa kaloo rabaa inaan ka dhawaajiyo inay habboon tahay taa lafteedu in meelaha kale iyana la gaarsiiyo. Finally, you have the potential to be the engine for economic growth of Somalia. Has been mentioned by Daiga, the special envoy. Let's all sit down together and see how concretely we can support the 2-year action plan that was presented today. The population, after all this suffering, needs to see that their lives are changing. Akolo iyana uu sheegay qorshaha soo gudbisay oo labada sano ahaa kana hadlay dhaqaalaha iyo macnaha dejinta dhaqaalaha saldhig leh marka waxa habboon buu yiri iyadana inaan wada fariisano kana tashano sidii arrintan u tabagal lahayd. Challenges are huge, and we wish you the very best by both the administration and the federal government working together. They can overcome all of them. And I can assure you, we will remain by your side in close partnership both with the sub-region and our international partners. Thank you very much. waxaan qabaa caqabadaha inay aad u tiro badan yihiin ha yeeshee caqabadaha waxaa laga gudbi karaa inaad iskaashataan maamulka ama stateka macnaha Jubaland iyo dawladda Soomaaliyeed ee federaalka markaad idinku gacmaha isqabsataan waxaad ka gudbi kartaa caqabad kasta oo macnaha muuqata ama jiri karto innaguna waxaan noqonaynaa inaan waan garab istaagaynaa annagoo kaashanayno macnaha caalamka guud ahaan iyo dawladaha ka jirta.